alifbeetada af Soomaaliga waxay u kala baxdaa shibane iyo shaqal. Shibanayaasha waxa weeye ba barbaarinta, ta tacabka, ja joogtada, xa xafiiska, kha khaladka, da daryeelka, ra ragga, sa sare, sha shaqada, dha dhexe, ca Cabdulaahi, ga galayr, fa faarax, qa qorane, ka kaahiye, la laanta, ma maxamed, na nuur, wa weli, ha haybe, ya yuusuf. Shaqalka wuxuu u kala baxaa shaqal gaab iyo shaqal dheer. Shaqal gaabta waxa weeye a e i o u. Shaqal dheertana waxa weeye a e i o u. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Welcome back. Soo dhawaada mar kale. cashirka maanta waxa uu ku saabsan yahay alifbeetada af Soomaaliga. Alifbeetada af Soomaaliga haddii aadan horey u soo baranin ama aadan si fiican u aqoonin, caawa ama maanta ayaad ka bogan doontaa oo videogan ayaad si fiican ugu baran doontaa. alifbeetada afka Soomaaliga waxa ay ka kooban tahay 21 xaraf. 21 xaraf ayay ka kooban tahay oo la yiraahdo shibanayaal, iyo sidoo kale 5 xaraf oo la yiraahdo shaqal. Marka la isku daro waxay isku noqonayaan 26 xaraf. shibane maxaa loo yiri? ereygan shibane waxa laga wadaa dhawaq ma samayn karo keligiis haddii aan lagu darin mid ka mid ah 5 shaqal. tusaale ahaan, ba marka lagu dhawaaqi rabo waa inay a bay wadataa. marka shaqalka keligiis a haddii la yiraahdo dhawaaq buu leeyahay, laakiin ba'da haddaan a'da la raacinin dhawaaq ma yeelanayso. sidoo kale ta marka la qorayo a'dii baa la socota oo ta haddaan la dhihin dhawaaq keligeed ma samayn karto. markaasi sidaas ayaa loo yiri shibane. marka 21kan xaraf waa shibanayaal oo keligood dhawaaq ma samayn karaan ilaa lagu laro ama lagu daro mid ka mid ah shaqalka. shibanayaashii oo inoo bilowday waa kuwana. waxa ugu horeysa ba ba, ta ta, ja ja, xa xa, kha kha, da da, ra ra, sa sa, sha sha, da da, ca ca, ga ga, fa fa, qa qa, ka ka, la la, ma ma, na na, wa wa, ha ha, ya ya. waa 21kii xaraf ee shibanayaasha ahaa. 21kan xaraf sidoo kale waxaa loo qori karaa si kale oo la yiraahdo xarfaha yaryar. kuwani waa xarfihii waaweynaa. xarfaha yaryar way soo socdaan, daqiiqada kadib ayaad arki doontaan. laakiin haddii aad rabto in aad xasuusato sida ay isugu xigaan oo aysan kaa lumin, waxaa jira erayo ama jumlado oo lagu xasuusto. waxaana weeye barbaarinta, tacabka, joogtada, xafiiska, khaladka, daryeelka, ragga, sare, shaqada, dhexe, Cabdulaahi, galayr, faarax, qorane, kaahiye, laanta, maxamed, nuur, weli, haybe, yuusuf. erayadaas ama jumladahaasi waxaa lagu xasuustaa 21ka shibane sida ay isugu xigaan. waa sida ABCda Englishka oo kale. haddaba shaqalka 5 xaraf ee shaqalka ah sidee lagu xasuusan karaa iyagana siday isugu xigaan ama u kala horeeyaan? waxaa lagu xasuustaa Axmed, eedadiis, isha, ooda, u geliyey. Axmed, eedadiis, isha, ooda, u geliyey. sidaas ayaa lagu xasuustaa. shaqalka waxa uu u kala baxaa 2 nooc, shaqal gaab iyo shaqal dheer. waxaan ku bilaabaynaa marka hore shaqal gaabta. waxa ugu horeysa a a, waxa ku xigta e
I, I, O, O, U, U. sidoo kale waxaa loo qori karaa kuwan waa xarfihii waaweynaa xarfaha yaryar a e i o u kuwaasi waa shaqal gaab waa marka ay halhalka yihiin waxaa jirta mar kale oo laba ay isu raaci doonaan markaasi waxaa loo yaqaanaa shaqal dheer a e i o u shibanayaasha xarfahooda yaryar sida loo qoro waa tan haddaba waxaanu baran doonaa 21 shibane iyo 5 shaqal marka mid la isugu daro oo la isu raaciyo mid walba dhawaaqa cusub ee uu samayn doono iyo sida loogu dhawaaqayo waxa ugu horeysa ba marka ba'da iyo a'da marka la isku daro ba buu samaynayaa dhawaaqi ba buu noqonayaa e marka ba'da lagu daro waxay noqonaysaa be be bi bi bo bo bu bu pa pa be be bi bi bo bo bu bu ta ta te te ti ti to to tu tu ta ta te te ti ti to to tu tu che 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 chi chi cho cho chu chu cha cha che che chi chi cho cho chu chu ha ha he he hi hi ho ho hu hu ha ha he he hi hi ho ho hu hu kha kha khe khe khi khi kho kho khu khu kha kha khe khe khi khi kho kho khu khu da da de de di di do do du du da da de de di di do do du du ra ra re re ri ri ro ro ru ru ra ra re re ri ri ro ro ru ru sa sa se se si si so so su su sa sa se se si
si, so, su, sha, she, she, sho, shu, sha, she, she, sho, shu, da, de, di, do, da, de, di, do, a, e, o, a, e, o, ge, gi, go, gu, ga, ge, gi, go, gu, fe, fi, fo, fu, fa, fe, fi, fo, fu, qa, qe, qi, qo, qa, qe, qi, qo, ka, ke, ki, ko, ka, ke, ki, ko, ku, la, le, li, lo, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu, ma, me, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, na, ne, ni, no, we, we, wo, wa, we, we, wo, ha, he, hi, ho,
ho hu hu ha ha he 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 ho ho hu hu ya 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 yi yi yo yo yu yu ya ya ye ye yi yi yo yo yu yu halkan waxaan ku baran doonaa marka xarafka shibanaha shaqal iyo haddana shibana kale la isku daro dhawaqa uu samaynayo marka haddii aad israaciso ereygan ba iyo a iyo ra wuxuu samaynayaa dhawaqa ah bar marka wuxuu noqonayaa bar bar bir bir haddii aad isku darto ba iyo i iyo ra wuxuu samaynayaa dhawaqa ah bir bir bur bur waa ba iyo u iyo ra bur baar baar haddii aad ba ku darto shaqal dheerta ah a kadibna aad ra ku darto wuxuu noqonayaa baar baar haddii aad beer ereyga ba haddii aad ku darto shaqal dheerta ah wuxuu noqonayaa bee bee ra haddii aad ku darto wuxuu noqonayaa beer beer buur buur haddii aad ba ku darto shaqal dheerta ah buu buu ayuu noqonayaa ra haddii aad ku darto buur ayuu noqonayaa tan tan tin tin haddii aad ti i ku darto ti ayuu noqonayaa na haddii aad ku dartana tin ayuu noqonayaa tun haddii ta u aad ku darto tu ayuu noqonayaa n haddii aad ku dartana tun ayuu noqonayaa taar taar ta haddii aad laba a ku darto wuxuu noqonayaa taa taa ra haddii aad ku dartana taar ayuu noqonayaa ga haddii aad ku darto beddelkii ra'da muxuu noqonayaa taag taag ta haddii aad ku darto laba i wuxuu noqonayaa tii tii ra haddii aad ku dartana wuxuu noqonayaa tiir tiir ta haddii aad laba ku darto wuxuu noqonayaa tuu ra haddii aad ku dartana wuxuu noqonayaa tuur tuur jar jar ja haddii aad ku darto a waxay noqonaysaa ja ra haddii aad ku dartana waxay noqonaysaa jar ja haddii aad ku darto i waxay noqonaysaa ji ra haddii aad ku dartana wuxuu noqonayaa jir ja haddii aad ku darto laba a waxay noqonaysaa jaa ra haddii aad ku dartana waxay noqonaysaa jaar ja haddii aad ku darto laba i waxay noqonaysaa jee ra haddii aad ku dartana waxay noqonaysaa jeer ja haddii aad laba i ku darto waxay noqonaysaa jii ra haddii aad ku dartana waxay noqonaysaa jiir xa haddii aad ku darto a waxay noqonaysaa xa na haddii aad ku dartana waxay noqonaysaa xan xa haddii aad ku darto i waxay noqonaysaa xi na haddii aad ku dartana waxay noqonaysaa xin xa haddii aad ku darto u waxay noqonaysaa xu na haddii aad ku dartana waxay noqonaysaa xun xa haddii aad ku darto laba i waxay noqonaysaa xee ra haddii aad ku dartana waxay noqonaysaa xeer xa haddii aad ku darto laba i waxay noqonaysaa xii qa haddii aad ku dartana waxay noqonaysaa xiiq tanna waxa weeye haddii aad a iyo ra iyo da iyo a iyo ya isku darto waxay noqonaysaa arday arday awr awr baabuur baabuur shaati waa sha iyo a oo shaqal dheer ah iyo ta iyo i shaati guri waa ga iyo u iyo ra iyo i laisku daray guri tusbax tusbax mundul mundul gabadh gabadh nin nin geel geel
libaax libaax bisad bisad jalaato jalaato xafiis xafiis wiil wiil adhi adhi muus muus dukaan dukaan mas mas masaajid masaajid xarfaha laban laabma xarfaha laba laabma wax kale ma aha waxa weeye xarfo marka lagu dhawaaqayo laba isu raaca oo carabkii ayaa lagu adkaynayaa dhawaaqiisa carabka lagu adkeeyaa ereyga marka xarfaha Soomaaliga laban laabma waxa ay ka kooban yihiin waa 7 xaraf oo kaliya 7 xaraf oo laban laabma ayaa jira xarfaha kale hadii ay xataa dhawaqa markii aad ku dhawaaqayso aad carabka ku adkaynayso ama aad u malaynayso inay laba noqonayaan ma laban laabmaysid waxaad laban laabaysaa oo kaliya 7daasi xaraf oo aanu sheegi doono waxayna kala yihiin ma na la ga ra da ba 7daasi xaraf kaliya ayaa la laban laabi karaa waxaan u malaynayaa markii la sameynayay farta Soomaaliga guddigii ayaa go'aansaday 7dan oo kaliya in ay laban laabmaan ma garanayo sababta laakiin 7daasi kaliya umbaa la laban laabi karaa waxaadna ku xasuusanaysaa ereygan oo markaasi noqonaya manala garaadba ereygaas ayaa lagu xasuusaa 7dan xarafba ereygan ayay ku wada jiraan oo ereygan ayay ku wada jiraan 7daba manala garaadba marka aad ka shakido erey inuu laban laabmayo iyo in kale ereygan soo xasuuso hadii uusan halkan ku jirin ereygaasi ma laban laabmo tusaalayaal xarfaha laban laabma waxa ugu horeysa ma'dii amaan ama amaanid amaanid waxay la mid tahay sida adigoo u qorayo kale maanid marka ma'dii ayaad 2 jeer ku dhawaaqaysaa maanid ummad 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 ma'dii ayaad 2 jeer ku dhawaaqaysaa marka xariiqan laguma daro laakiin dhawaqa si aad u fahamta ayaan ugu darayaa xariiqani ma'da 2 jeer ayaa lagu dhawaaqayaa merid dhammaan na'da iyadana waxaa laban laabma annaga habeenimo bannaan bannee la'da tusaalayaal kalluun waxay la mid tahay sida adigoo u qoraya kalluun ballan dallad ballaadhin tusaalayaasha xarfaha ama ereyada laban laabma ee ga'da hoggaan lugooyo xoogga xaggee tusaalayaasha ereyada ra'da ay ku jirta ee laban laabma xarago qorax sarif tusaale haddii aad ra'da ka ilowdo ereygan oo aad u qorto sarif wuxuu noqonayaa sarif dhawaaqi baa halaabaya marka sarif weeyaan sarif 2 ra' weeyaan xariiq xidig adduun haddeer rabaayad babbis cabaar kubbad sidoo kale sida afafka kale ama luqadaha kaleba afka Soomaaliga wuxuu leeyahay erayo la yiraahdo
isku dhigmo kala dhigid wax kale ma aha waxa laga wadaa erayo isku si loo dhigo oo isku si loo qoro laakiin dhawaaqa si kala duwan loogu dhawaaqo erayadaasi waxa ka mid ah daar iyo daar sida nalka oo kale marka la daarayo iyo daar guri daar ah waxa ka mid ah tuur sida dhagax marka la tuurayo ama tuur sida fool waa eliga hore ee foolka ama fool marka xarfahan erayadan dhawaqooda ayaa kala duwan laakiin dhigistooda ama sida loo qorayo waa isku mid tusaalayaal kale calaacal sida calaacasha gacanta oo kale calaacal waa cabasho markuu qofka cabanayo ama calaacalayo neef sida neefta la neefsado oo kale ama neef xoolo ah soor sida martisoor oo kale marka aad qof martisoorayso soor sida soorta la cuno oo kale halkan waxaan ku haysanaa erayo iyo markaasi sawiro oo la doonayo in la isku hagaajiyo marka haddii aan soo qaadano kan ugu horeeya haan waxa uu ku hagaagayaa midkan haan baabuur waxa uu ku hagaagayaa kan baabuur dukaan waxa uu noqonayaa kan ayuu noqonayaa dukaan aqalka kanna wuu noqon karaa aqal Soomaaliga kanna wuu noqon karaa xafiis kan ayaa laga wadaa dameer geel waran sidoo kale farta Soomaaliga marka la qorayo waxa ay leedahay nidaam loo qoro oo markaasi si wixiiba haddaad isku wada daba xidhiidhiso lama fahmi karo marka sidan ayaa loo qoraa tusaalahan Axmed guriga ayuu u socdaa waxa uu la socdaa saaxiibkii marka waa inaad sidaas aad u habaysaa oo u kala jarjartaa haddii kale qofka akhrinaya si fudud kuma akhrin karo tusaalayaal kale sida marka la qorayo loo nidaamiyo tani ma aamina maya tani waa sahra tani ma sahra maya tani waa aamina halkan waxa la inagu siiyey waxa la yiraahdo layli ama exercise oo sawiradii iyo waxana la siiyey xarfo ay bad maqan yihiin marka xarfaha maqan ayaa la inaga rabaa inaanu ku darno videoga jooji ka shaqee kadibna isku day in aad saxdo oo aad sida aan uga shaqayn doono aad uga shaqaysay hadda waxaan filayaa in aad ka soo shaqaysay oo aad soo laabatay waan ka wada shaqaynaynaa kan ugu horeeya waxa la gelinayaa ta oo waxa weeye taalo kan ka hooseeya waxa la gelinayaa qa oo waxa weeye qalin kan ka sii hooseeya waxa la gelinayaa da baa la gelinayaa waa dambiil kan ku xiga nacnac kanna la baa la gelinayaa waa quful kan waxa lagu darayaa xaaqin kan waxa lagu darayaa ga waxa weeye gambadh kan waxa ka maqan sa wuxuu noqonayaa faynuus kanna waran yaambo tuke kan oo baa ka maqan wuxuu noqonayaa orgi cashirkii maanta intaas aynoo joogo inta aynu ku kulmi doono cashirkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu